دراسة دار العلم للأيتام لتعليم الشريعة والمادية يعني معناه هي دكسية دار العلم برشة مادية يدينية وعروض أغانت مركا يكبرتان. بسم الله الرحمن الرحيم. على كانوا مدرسة دي أدوق دارتي علمها أغانتها وحكبرنيين دار العلم حرونتا أغانتها دار العلم دقمة الشحذة هل كان واحد كسر الاسم قل كي دميتور لسي كان هو جلاس إذا كم ذي وحكود كتانين جلاس كل بعد نواه كان دنا كأنه كأه هل كوا قل هذا لسي أو حفيسه أو أوفيسه أو حفيز كيا بلوكيت وجوانه بنان كويا لا ليش أنا وماشي بيها كعبين المه ومارتي توبدي بركدي هل كان ودي سينا أيضا ولا شيء حيصبح ولا شيء إن شاء الله guryahan iyo xaruntan waxbarashada waxa dhisay qolad dibadda jirta oo deegaankan ka soo jeeda khayr Allah siiyo ilmaha agoonta ay ugu talagaleen inay wax ku bartaaniin iyo dadka baahiyaha gaarka qaba waxa markii horeeto asaaska guryahan iska leh oo dhistay qofta Xaawo Saciid Maxamuud Xaawo Geni khayr Allah siiyo xaruntan bay waxay ugu talagashay iyada kulli hormuud ka ahayd inay noo dhisto xarunta ilmaha u dhisto marka Xaawo Geni ayaa ugu horeysay intii ka dambeysana waa lagu dardarayay oo dad sharaf leh oo khayr qaba oo qurba joogta ayaa arintan gacanta ku haya bixinta lacagta mushaharka macallimiinta iyo wixii dhismaha lagu darayo halkaas laga maamulaa waa badan yihiin dadka kuwa timirsiya baa jira caruurta kuwa biyo cabaan siiya baa jira macallimiinta kuwa qaabilsan baa jira qayb dhismaha soo dirta baa jira khayr Allah siiyo hadda gurigan hadda aan dhisayno lacagta waa la soo ururiyay dadka soo ururiyay iyo barkada caruurta fikirkaas waxa soo jeedisay Xaawo Geni Allah barakeeyo Xaawo Saciid Maxamuud waxay tiri waxaan dhisayaa xarun lagu baro ilmaha agoonta ah waxbarashada asaasiga iyo Quraanka Kariimka waxay ciyaalku qaataan maadooyinka qaataan waxbarashada asaasiga ah iyo Quraanka Kariimka labada nooc loo dhigaa marka hadda waxa ka hawlgala hal macallin baa hadda jooga macallin labaadna wuu soo socdaa laba macallin baa ka hawlgalaya insha Allah barnaamijka haabuurka Xaawo Geni baa iska lahayd laakiin dad badan ayaa hadda ka qayb galay wax ku darsaday kuraasta Ismaan Cali Guul baa noo keenay khayr Allah siiyo qolkan waxa dhisay qolyo kale oo iyaguna lacag iska soo ururiyay maqsuusha oo dhinaca kana waxa noo dhistay Shariifo Ismaaciil Ducaale khayr Allah siiyo Shariifo Ismaaciil Ducaale iyadoo waxay noo dhistay maqsuusha oo hadda wax ka dhiman yihiin oo qabyo ah marka qof walba oo helo khayr ah oo dadka banaanka jooga qurba joogta iyaga wax ku darsan caruurta hadda dhigata waa 43 laakiin waxa lagu darayaa oo u diyaarsan 17 waxa laga dhigay caruurta 60 marka horeeto maadooyinka ay baranayaan nin waxbarashada asaasiga xisaabtii carabigii ingiriiskii soomaaligii iyo quraanka kariimka ahaa adigu wali maadooyinka qaataan oo maadiga inta waa ka badan yahay macallinka insha Allah inoo sheegi doono waxaan kala hadlayaa horta aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa qolyaha qurba joogta ah oo ka soo jeeda deegaanka shaxda oo ay ugu horeyso Xaawo Geni Ismaan Cali Guul ku jiro Shariifo ku jirto Maryan ay ku jirto Maryan Qoryooley waxa weeye kaligood ma aha ee qofta la Shamis Allah barakeeyo dadkaas magacooda ma soo tirin karo intii ugu horeysay baan soo hadal qaaday ama inta aan ka xasuustay baan soo hadal qaaday kuwaas aan u mahad celinayna Ilaahay mahad u sugnaatay waxaan jecelahay wixii damo oo ka dhiman iyaga ku sii dari doona xaruntu way weynaanaysaa insha Allah halkaan qolka hadda la wado halka qol baa kale taagalay oo isagana aan wadno halkaan waxa galaysa barkadii oo barkad weyn oo ilaa 40 fuusto biyo qaada oo aan rabno in hadda subaxdii bilowno oo bulkeedka lagu dhisay wax banaanka noo yaal oo aan hadda intu soo doono waxyaabaha naga dhiman muhiimadda qolka hadda aan wadno oo lacagtiisa qayb aan noo hayno qaybina naga dhiman tahay lacagtaas waa naga dhiman tahay qolkaasna waa naga dhiman yahay barkada ruuxda waxba naga dhimaysan qiyaasayo maqsuusha Shariifo looguma tago Allah barakeeyo Shariifo Ismaaciil Muusawi diyaaraha cid kasta oo madrasada dad muslimiin ayaa taageera qurba joog baa u badan dadka gudahana waa loo baahan yahay cid kasta oo taageero wax ku darsata waa u furan tahay lambar beeleeda lacagta loogu ururiyo lambarkeedu waa furan yahay nin kasta oo xasanaad ka raba wuu ku soo darsan karaa waa furan tahay xaajadeedu cid gaar maartay uma xirna lambarka waa furan 6 48 43 43
وفر اللح أفرتني سديد أفرتني صدح